ummadda Soomaaliyeed ay midnimo waxaad ku weydeen kala firir iyo kala orod iyo kala tig iyo kala tag iyo jibis waxaan ku noqono kuma weyneen nin walba oo Soomaaliya meel walba joogto waxaad ka fikirtaa sida aan maaragtay wadankii ku soo celin lahayn ogaanayeen ku soo celin lahayn oo Kenya dadka nalaga haysto macal Djibouti aan isugu imaan lahayn ka fikira annaga ummad muslimiin ah annaga Ilaahay diintiisa waxyiga Ilaahay gacanta noo geliyay annaga quraankii iyo nuurka Ilaahay gacanta noo geliyay ma nin mugdi ah oo gaal ah ayaan daba soconaynaa war gacanta intaas qabsanno oo walaalowno nimankan al-shabaab ay gaalada noogu tilmaamto waa cadow waa dad walaalahina waan isku imaan karnaa waan heshiin karnaa wadankana waa soo ceshan karnaa nimankan maaragtay Axmed Madoobe Cabdikariin midka la yiraahdo dulligu dhalay iyo kan maaragtay maxaa la yiraahdaa oo la heesay kabre oo la dhaantada la tumanayo nimankaas iyo Xasan Sheekh iyo Cabdiwali waa nimanka wadanka gaday waa tuugo in Ali Sharmaarke calooshi baa dilaacday sida Cabdi Ilay waa tuugo oo wadanka dhacay oo wadanka boobay waa yaxaasyo aan ka tashanno international community 26 years bayna meermeerinayeen waxba nooma qabanayaan American English waxa weeyaan badeeni waa la haystaa lama geli karo waa dadka u shaqeeya nimankan waxa loo shaqeeya al-shabaab waxa u shaqeysaa iyo nimankan Xasan Sheekh iyo kulli madaxda isku sheeg oo dhan nimankan badda degan badda qaatay iyo u shaqeeyaan waxa weeye ma taqaana nimankii waa aragteen inuu sheegay ninkii la yiraahdo madaxweynaha Eritrea inuu sheegay waad aragteen no more exist Somalia waa jibis war intaas ku soo noqono oo isugu nimaadno nin walba meel aad joogtaba tuuganimo iska ilaali been iska ilaali xaaraan iska ilaali xaasinimo iska ilaali wadaado hubka dhig tuugo hubka dhig qiyaanolo hubka dhig wadaninimo ummadii aan iyo shacabka aan isku soo celino wadanka quruxda badan annagoo indheena shantiyiin yaana laga xayuusan oo gaal xun oo dulli ah oo Ilaahay ku caasiyay oo Ilaahay ka cararay oo Ilaahay waayay yuuna hogaamin oo yuuna talin yaana gaal u sujuudin kuwaan aad wadanka u dhiibateenna gaalada ay dabada u dhaqaan waa baalashlayaal waa qurun uraayo nin walbana naag Itoobiyana ayaa lagu daray Xasan Sheekh naag Itoobiyana lagu daray Cabdiwali naag Itoobiyana lagu daray Axmed Ilay naag Itoobiyana lagu daray Cabdikariin la dhahayo tuugu dhalay oo maaragtay oo dadkii walaalaheen oo la baabiyay oo la dilay yiri ana ka dambeeyay hawshaas ana qaatay ana saana nin gaal u sujuudaya waxba kuma ahan aniga ayuu gaal iga dambeynaya aniga ayuu gaal i hoos imaanaya wadanka aniga aan xukumayna oo anaga haynayna waa wadanka kutubka quraanka iyo waxaan ku soo celinaa sunnaha Ilaahina waana la jiraya oo nuurka noo imanaya oo gacantan is qabsanayna ninka walaalka dilayso waa walaalka war al-shabaabay dadka aad dhameynayso waa dad walaalaha war hurdada ka kac iyo gaalku isticmaalin war hormuudow iyo gaalku isticmaalin war dahabshilay war yow gaalku isticmaalin war Xasan Sheekh iyo waxan baalashlayaasho kulli oo waxba shaqeyno wadankii waa gadeena dhaaba aan u soo noqono nin walba meel walba joogo maanta waxay u baahan tahay in aan hurdada ka kacno in aan qalbiga isu sifayno in aan isu soo noqono gaal carabiga ayuu naga ilaaliyay quraankii ayuu naga ilaaliyay wuxuu ka rabaa nin walba muslim Soomaali inaad meelaha iska taagnaato aadan tukanin aadan Ilaahay la xariirin waxa la yiri nimankan muslimka ah kutubka iyo quraanka hal laga dheereysiyo si ayna ugu soo noqon sidii jiilkii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabadii oo kale haday quraanka iyo isla helaan عربي قد إسلام سيد جيل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي صون نقنيان وذا ذو بين لوبا تبين تاشيكن وصلاة الصبح وسوكع وأمة القرآن كي عربي قبرة ورهم قريون هو أردني علمي ما نو أرضية علمي ما سوق هذية حقنا نص هذا بيسي باتاي والقرآن كي عربي قبلابا إن دكتان أو تكون دراسان أو هيستان أو إذن كنا استعلانا كم بنيديان أو قالت إذن سمي وهابي إصلاح ريليف احتسام all this فضوي كاغا سو هرتي war waxa wadanka iyo hurdada ka kac oo diinta runta ka sheeg oo ilmahaaga runta u sheeg oo adiga naftaada runta u sheeg oo xaaskaaga runta u sheeg been baan ku wada noolnaa jibis baan nahay adduunka waana laga nacay intaan isku nimaadno aan isku tashanno aan walaalowno oo midnimo waxaan ku weynay kala firir iyo kala orod waxba kuma helino wadaado diinta runta ka sheeg oo quraanka runta ka sheeg oo ku dhaqan afka kaliya iyo qalbiga waxa jira ma jiro ku dhaqan oo quraanka laga arko sida nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo asxaabadii gaalada halkaas naga degtay maskaxdaas naga degtay hubtan banooma soo qaadanayso madfacda banuguma garaacayso dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqda ayaa naga dhiriyay aqeedo toosan akhlaaq wanaagsan isjacayl muhibbo
wadaadoo kuwa diinta haystow war muxubaha laydinka helo war ummadda jeclaada war qabiil ha ku nicin war ninkan gurub ha ku ximinine isjeclaado gacanta isqabsada waddanka aan soo celinno kuwaan baalaslayaasha oo Itoobiya laga wacayo kulli saa u wada sujuudaya gaalada saa u sujuudaya uraya siyaad barre waxaa lagu riday min la salaamu wuxuu u saxaxay in uu Itoobiya soo ogaadeen gacanta soo gasho taasaa lagu riday waana ilaahay idinkiis biidmillaahi kariim Kenya iyo Itoobiya ilaa Jabuuti waan soo celinina inta isku nimaadno oon isjeclaanno oon iswada hadgarayno oon iswada muxubayno gaaladan noo tashatay ee quraanka iyo carabiga naga dheeraysay oo ilaahay xiriirkiisa naga dheeraysiisay intaan diinta runta ka sheegno oon ilaahayna run u sheegno oo nafteennana run ugu dhaqanno aan jeclaanno waddankan aan soo ceshanno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu